الحمد لله رب العالمين قلبتها waxa magaalada Hargeysa iyo agaarkeeda ka daay roob weyn oo nimcada Ilaahay nimco waliba nusqaanteeda way leedahay roobkaasi wuxuu lahaa dabayl xoogan oo ka horeysay dhibaatooyin buu geystay dadka dhintay waa 3 Ilaahay ha u naxariisto qaran ahaan tacsibaynu u daraynaa dadka dhintay qoysaskoodii ehelkoodii iyo qaranka waa ka tacsideynaa iyagana Ilaahay ka hageeyo jannadii firdawsa shahiidka iyo dadka daadku qaada iyo dadka sanoo kale ama qarraqma dhibaatada ku dhacdana waxa waadadu inoo sheegay inay jannadii marka Ilaahay ha u naxariisto dhaawacuna waa 18 Ilaahay mahadii dhaawaca badankoodu waa ladan yihiin waxa imka kooma ku jira ma jiro laba qof baa u daraa iyagana imka waa hadlayaan oo koomada waa ka baxeen dhibaatooyinka gaadiid leh ee jidad leh ee guriyarheena ma badna wayse jiraan dhibaato weyn magaalada waxa u geystay cidhiidhiga la geliyay meelaha biyuhu marayeen waxa kale dhibaato weyn geystay boorarka faraha badan ee xaysiiska ah oo laga sameeyay biraac culus oo si aan adkayn dhulka loogu qotamiyay qalabka ay ka sameeyeen oo cuslaa oo u baahan dib u noqosho qalabada laga taagay halka dawladda hoose iyo shirkadaha xayska sameeyaba inuu marka hore qalabkaasi uu noqdo mid fudud oo dadka waxyeelada markuu dhacayo marka labaadna la adkeeyo waxayna dhibaato ka ah xariiqada electriga iyo shirkadaha qaado waxa soo dhan asaas baa lagu sameyn doonaa qaranku guud ahaan shacabiyada dawladda gurmud weyn waa la galay wixii la badbaadin karo iyo wixii la qaban karo roobka dhexdiisa waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradaha oo dhammi waa gurmadeen gaar ahaan labada wasaarada hawsha aad u khusayso oo dakhliga iyo caafimaadka hadday dhaawac qaadisay tahay iyo hadday daweynta dadka u shaqeynta tahay iyo haddii ammaanka ay tahay waa la dadaalay waxa gobolka Maroodijeex barasaabka iyo tiimkiisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawl weyn bay galeen iyo dawladdiisa hoose oo yana aad iyo aad u dadaashay dadaal badan oo jira wax badan lagu badbaadiyay waxaanu isleeyaynaa laba qodob ciidamada qaranka Soomaaliya joogaanba booliis iyo debdemis iyo ciidan iyo kuwa kale abniga waaye ciidan waliba halkiisa buu ka galay ilaa haddana waa ku jiraan wixii uu dad qaad badbaadada iyo qabashadana iyaga hawl badan ka qabtay dadka shicibkan waa dadaal qof waliba halku joogayba waa Ilaahay mahadiiska dubnadaas laba qodob baynu u baahanahay oo roobka mar walba inuu soo noqnoqda inaynu wacyigelin ahaan ka wada qaado talaabo ka wada qaado dadku meeshay degayaan hadday biyihii xidhaan dad badan waxa ay dawladdu waxay qorsheen weyday waxaba laga yaabaa inuu qorshe hore ku degay waxaba laga yaabaa intuu dhistay inay noqotay waara guriga dubiye maxaa laga yaabaa oo si qartajaas wax loo dhiso horta biyihii weyn xidhnay magaalada meel badan oo dhisnay dadka degan meelaha biyuhu waxay u baahan yihiin inay iyaguna badbaadiyaan qarankana ka badbaadiyaan dhibaatada laba shirkadaha dabka magaalada u gudbiya in badanna waa ku celinay hay'adaha ku shaqada leh iyo wasaaradaha ku shaqada leh iyo ciidamada waxaan soo toosoo amraynaa inay tallaabo adag nabadgelyo ka qaadaan labada qolada dabka gudbisa si ay u gudbiyaan dabkaasi inuu ammaan yahay iyo qolada xaysiiska biraha culus meesha soo dhigtay dawladda hoose iyo wasaaradda arrimaha dhulka hawlaha guud waxaan isku tagi bal waxa dhisan mooyee biyaha magaalada mar walba dhibaato ka dhacayso in xal loo helo tano qura maahay magaalo waliba waa caynka oo roobkii maanta ku dhacay magaaladu ku dhacaabo waa inta in leeg mar labaad tacsiir dadka u darana Ilaahayna waxaan uga baranaa jannada ka waraabiyo dhaawacu inoo leeyahay waxa kale ee dumay ama wada ama gaaro qaadeen asaaskoodii tirada lagu jiraa dadkii soo gurmaday ee ciidan leh ee wasaarada leh ee dhakhaatiir leh ee debdemis leh waa mahadnaqaynaa waanu ku bogaadinaa hawshaada qaranka u noqdeen inay sii wadaan qolada wartabinta wasaaradda warfaafinta oo hadda aan u soo galnay waa ku mahadnaqaynaa inaad diyaar ahaydeen oo waxba dhulkeed ka oolin oo heegan waahaydan wixii ka soo rabeen aad ka gudbisaan aad iyo aad baa mahadsan